maayaradii dalkana aynu sidaas la mid u qaybsano oo qolana maayarada magaalooyinka ka lagu dhiso qolana kulmiye lagu dhiso arrintaasi waxay keenaysaa guul weyn oo mucaaradka ay keenaysaa runtii dadka qaar baa mooda xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi inay dhaceen 2024 maysan dhicin waxay dhaceen kulmiye wuxuu dhacay maalintii baarlamaanka iyo maayarada gacanta looga dhigay siyaasaduna uma baahna ciilqab iyo waxa weeye caloolqab waxay u baahan tahay maalinba halka ay taagan tahay inaad hor u socoto waxyaabaha hadaynu kulmiye aynu nahay guuldarrada inoo keenay waxa kamid ah inaynu dadkii hanan kara weyn hebel eri marka waxa loo baahan yahay marka qaar kood inaad wax walba qoladayada kulmiye naftirka iyagu waxba naga qaldan waa ogtiino dhexdayada mushkiladaha ka jirta kala aragtiba ka jira inta aanu anagu xalkayaga hoos u dhamaysanayno ee anagu naftirka iyagu aan dib isu soo abaabulayno kulmiye ahaan waxa idin saaran waajib ah mucaaradnimadii ka hayatay kulmiye bayna sii wadaan runta laga hadlo mas'uuliyadda xisbiga waxay saaran tahay gudoomiyaha xisbiga Maxamed Kaahin gudoomiyaha waxa leeyahay gudoomiye waxa la oran jiray hebelow labada dambe shan ka dhig marka maanta nuxurka hadalkaygu waxa weeye taageerayaasha kulmiye iyo xisbiyanba in labada dambe shan laga dhigo bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan idin salaamaya marka hore maanta waxaan doonayaa inaan saddex qodob ka hadlo qodobka ugu muhiimsan ee aan doonayaa inaan taabtaa waxa weeye dagaalkii shalay ka dhex bilaabmay xisbiga mucaaradka ah ee ka iyo xukuumadda innaga haddaynu nahay reer kulmiye ama xisbiga kulmiye doorkeebaynu ka qaadanaynaa xisbi ahaan iyo taageer ahaanba xisbiga kulmiye taageerayaashiisu rool noocee ah baa inooga bannaan dagaalka ka dhex bilaabmay ka iyo xukuumadda wadani in dadka loo sharaxo halka ay wax marayaan siyaasaddu sideedaba saaxiib joogtaana ma leh cadaawad joogtaana ma leh maalinba meel bay taagan tahay marka haddaadan la jaan qaadin maalinba halka ay taagan tahay ciddii garanaysa waxaa jirta berigii hore fooneeyaal baa la isticmaali jiray intaynan inoo iman moobilada iyo waxan iyo layleen arrintan tiknoolajiyadda casriga ahi fooneeyahaasi marka la ismaqli waayo ee codku uu daciifo waxaa la oran jiray hebelow labada dambe shan ka dhig marka maanta nuxurka hadalkaygu waxa weeye taageerayaasha kulmiye iyo xisbiyanba in labada dambe shan laga dhigo oo siyaasadii aynu markii hore qolada kaah iyo Maxamuud Xaashi isku haysanay dhulkaynu yar dhigayna siyaasaddu way isbedeshay dagaalka ka dhex qarxay wadani iyo kaah waa dagaal sharci oo xagga qaynuuniga qolaba waxbay ku eedeynaysaa qolada kale runtii inagu kaah waxaynu laba arrimoodba waynu isaga soo horjeednay marday wadani bay la xulafo ahaayeen oo waragii ina wada riday bay ahaayeen arrintaa waynu ku diidanayn mar kalena mucaaradnimadoodu wax cad ma ahayn oo iyo cod bay ahaaydo niman mucaaradnimadii u soo banbaxay maysan ahayn oo taana waynu ku haysanay kaah laakiin maanta hadday kaah dibadda u soo baxday oo ay mucaarad noqotay oo maanta gantaaladii ugu dambeeyay ay rideen Maxamuud Xaashi oo dalka waliba Ingiriiska nala jooga hadlay oo waliba si waadax u hadlay innaga roolkeena kulmiye markaa muxuu yahay taan doonayaa ee muhiimkii waa taa weeye runtii siyaasadda guul kama gaadho ninka xagga dambe eega siyaasadda waxaa guul ka gaadha ninka xagga hore eega mar walba waxaa la eegaa uun xaaladaad ku sugan tahay iyo waxa ku hor yaalla ayaa la eegaa si kastoo aynu kaah iyo kulmiye u kala boodsaneen waqtigii doorashada maanta waynu isku qasbannahay marka xaqiiqada laga hadlo inaynu wada shaqayno haddaba su'aashu waxa weeye maxaynu ka wada shaqaynaynaa maxaynu ku kala tegaynaa waxaynu ku wada shaqaynaynaa laba arrimood kulmiye kaah ku wada shaqaynayaan kow waa arrin dastuuri oo laba xisbi oo mucaarad baynu nahay inaynu iskaashano
oo aragtideenna mucaaradnimo aynu midayno mar walbo labada xisbi ee mucaarada ay iskaashadaan xisbiga talada haya muxaafidkii wuxuu noqonayaa minority majority-ga waxaa helaya hadday waxa weeye shacab noqoto xataa labada xisbi ee mucaarada iskaashaday marka awood baynu helaynaa aynu dowladii ku maquujino oo mucaaradnimadii aynu iskaashano waa qodobka koobaad qodobka labaad xisbiga kaah iyo xisbiga kulmiye waxaynu iska kaashanaynaa doorashooyinka ugu soo horeeya iminka ee baarlamaanka iyo deegaanka doorashadii madaxweynuhu way dambaysaa ilaahay waqtigeeda hayna gaarsiiyo laakiin doorashada baarlamaanka iyo deegaanka ee iminka ugu soo horeysa waa muhiim in aynu kulmiye iyo kaah intaynu iskaashano aqlabiyadda baarlamaanka gacanta ku dhigno oo aynu shirgudoonkii baarlamaanka qaybsanno sidii dhici jirtay xisbina uu qaato gudoomiyihii xisbiga kalena uu qaato labadii ku xigeen maayaradii dalkana aynu sidaas la mid u qaybsanno oo qolana maayarada magaalooyinka kaah lagu dhiso qolana kulmiye lagu dhiso arrintaasi waxay keenaysaa guul weyn oo mucaaradka ay keenaysaa runtii dadka qaar baa mooda xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi inay dhaceen 2024 maya maysan dhicin waxay dhaceen kulmiye wuxuu dhacay maalintii baarlamaanka iyo maayarada gacanta looga dhigay maalintaas kulmiye dhacay marka waa inaad ogaataan doorashada madaxweynaha waxa ka horeeya doorasho kale oo lagu sii garto guusha iman karta doorashada madaxweynaha doorashadaasina waxa weeye waa ta baarlamaanka iyo deegaanka marka reer kulmiyow inagu wixii marka ka dambeeya labada dambe waa inaynu shan ka dhignaa istiraatiijiyad cusub aynu la nimaadnaa kaah wixii hore inooga dhaxeeyay meel baynu dhigaynaa marka doorashada madaxweynaha la gaaro marka kaah waynu kala leexanaynaa kala ajandaynu nahay kala musharax baynu nahay kala arrin baynu nahay laakiin iminka doorashooyinka soo socda iyo sidii xukuumadan loo mucaaradi lahaa inaynu iska kaashanaa waa arrin muhiim weeye siyaasaduna uma baahna ciilqab iyo waxa weeye caloolqab waxay u baahan tahay maalinba halka ay taagan tahay inaad hore u socoto waxyaabihii haddaynu kulmiye aynu nahay guuldarrada inoo keenay waxaa ka mid inaynu dadkii hanan kara weyne hebel eri marka waxaa loo baahan yahay marka qaarkood inaad wax walba ilowdo danta siyaasadaada aad raacdo marka waxaan leeyahay reer kulmiye ha ambanina maxamuud xaashi waxaanuu cunay kanuu cunay hadduu horteenno qof nool ku liqo oo aynu arkayno laakiin danaha siyaasadeed aynu wada leenahay ay dana siyaasadeed waxa weeye ayna midaynayaan waxba inagama gelin yaan siyaasadda ha ka dhicina marba halkay u socoto la raaca waxa weeye maanta laga bilaaba innaga iyo kaah waxaynu nahay laba xisbi oo mucaarad oo iskaashanaya oo doorashooyinkii baarlamaanka iyo deegaanka isu kaashanaya oo mucaaradnimada xisbiga waddan isu kaashanaya halkaasi arrin taagantahay marka sidaa ula socda siyaasaddu way isbedeshaa maalinba meel ma taagna waa inaad la socotaa maalinba halkay taagan tahay qodobka taasaan kaga baxaya waxaan doonayaa iyagana inaan kelmad iraahdo xisbiga kaah waxaan leeyahay ilmaad herayaal dee wixii hore inoo kala gaarayna waa siyaasad iminka baashu waa isbedeshay roolka aad qaadateen iminka ee dibadda aad u soo baxdeen ee aad xukuumaddii mucaaradeen waa idinku hambalyaynaynaa halkaa ka wada doorkaasi door bannaan buu ahaa annaga qoladayada kulmiye naftirka iyagu waxbaa naga qaldan waa ogtiinoo dhexdayada mushkiladaha ka jirta kala aragtibaa ka jira inta aanu annagu xalkayaga hoos u dhammaysanayno ee anigu naftirka iyagu aanu dib isu soo abaabulayno kulmiye ahaan waxaa idin saaran waajib mucaaradnimadii kaah iyo tii kulmiyeba inaad sii wadaan marka halkaa kaga wada waa mahadsantihiin ayaan leeyahay xisbiga kaahna waxaan inoo rajeynayaa mustaqbalka doorashooyinka soo socday baarlamaanka inaynu iskaashanno oo aqlabiyadii deegaanka iyo baarlamaanka aynu gacanta ku dhigno si aynu xukuumadan u kontrolno taana waxaan leeyahay qolada reer kaah waxaan ku soo gabagabeynayaa qoladeennii reer kulmiye waxaanu leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa tiisaba daryeela tu kala ku dara horta innaga maanta waxaynu hortaagan inaynu xisbigayagii hagaajisano xisbigayagii inaynu ka shaqayno xisbigayagii inaynu dhiig cusub ku shubno xisbigayagii waddadii hore ee guuldarradu inagu soo gaadhay inaynu ka leexanno
haddaad maqasho kulmiye khilaaf baa ka jira wax kale ma ahee war labadii doorasho ee ugu dambeeyey tii baarlamaanka iyo tii madaxweynahaba waynu guuldarraysanay ururadiina kaalinta saddexaad baynu galnay wal imaadee rayaalo nidaamkii nooca ahaa iyo waddadii nooca ahaa kuma socon karnee aynu xisbigii hagaajisano oo istiraatiijiyad cusub aynu u samayno oo dhig cusub aynu ku shubno si aynu labada xisbiga kale isaga celino inta la isku hayaa waaba intaa iyo maye waynu iska dhex fadhiyaynaayo ciraanu la shaqaynaynaa muhiimaddu waxaa weeye marka runta laga hadlo mas-uuliyadda xisbiga waxay saaran tahay guddoomiyaha xisbiga maxamed kaahin guddoomiyaha waxaan leeyahay guddoomiye talo waxaan kugu soo jeedinayaa taladii dhaxalgalka ahayd ee uu ku siiyey ex wasiir cali mareexaan taladaa qaado waa talada xisbigu ku dhismayo ee ku hagaagayo labada ninna midigta kaa fadhiyo ninna bidixda kaa fadhiyo ee ku-xigeenada kuu ahi nimankaasi xisbiga waddani bay toos ula shaqeeyaan waa nimanaan oggolayn in xukuumadda la mucaarado waa niman hadalkii iminka ugu dambeeyaa tiri soomaaliya inu doorannay waa niman ka cadhaysan oo doonayo uun ciro in la ag fadhiyo lala shaqeeyo nimankaasi niman kuwadaya maaha guddoomiyaha waxaan leeyahay taladii aday kuu taallaa talana waa tuu cali mareexaan ku siiyey hadalka intaasaan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.